الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كوا إيمانك لغا هلاي قلبيدودو ku xasileen baa ilaahay leeyahay alle xuskii iyo dhikrigiisa alle xuskii iyo dhikrigiisa ay ku xasileen ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub baa ilaahay leeyahay ilaahay xuskiisa ayuu ku dagaa qalbiga qofka bini'aadamkii ilaahay waxaanu tilmaamaya walaw anna ahla alqura aamanu wattaqaw kuwa magaalooyinka deganay hadday ilaahay ka cabsan lahaayeen iimaanna laga heli lahaa cirka iyo dhulka barakaadkoodaan u furi lahaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala nabadgelyada iyo xasiloonidu waxay ka mid yihiin nolosha waxyaabaha ugu qiimaha badan leh walidaalika baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa in dhowr iyo 10 meelood ka badan dadka ama saalixiinta ama awliyadiisa ama aakhira u abaal marinayo laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilaahay ku sifaynaya badan لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كوا عبسنا يماها وعبسي كركودا ماها نين من التيرانيون يا عبسيدا يتيران يدو نولش عديد بيقليان وانا دب بنا آدم ككردعه وانا وحيابا مقاصد الشريعه علماء يدهدان اي يمادين ودن ان قفكو نبضو هلو دينتيسه عقليسه نفتيسه مالكيسه هي عرضيسه هي شرفتيسه مقاصد الشريعه الخمسه والسته علماء تلمامان ودنت الدين تبلو سرغي شنتا شيء من 11 شيء ان دينتو الاليسو sida awgeed waxaynu ku tilmaaminaa inay tahay waxyaabaha noloshu aanay marnaba ka maarmin adduunkan aynu joogno xadaaradiisa iyo horumarkiisa ay sheegaanna waxay dhahdaan sullam alxadaara salaanka loo fuulo bay dhahdaan xadaaradiya iyo horumarku waa lamn walistiqraar siyaasi bay iyagu ku tilmaamaan waa nabadgeliyo iyo deganaanshiyo siyaasadeed bay dhahdaan dib u dhaca iyo takhallufka iyo jabkuna wuxuu ka yimaadaa bay dhahdaan al-iddiraabat wal-khawf dadka oo cabsi ku beeranto ama nidaamkooda siyaasigoo degi waaya iyo wixii la halmaalaa waxay bini aadamka ku keenaan dib u socodnimo هذا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكت المام يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون خير بني آدم وبا إلهي سبحانه وتعالى هذه حاجة يدين كي مادان رسل شاسو يقصون عليكم آياتي idinku dul akhrinayo idinka warramaya aniga aayaadkayga iyo waxyiga alle subxaanahu wa tacaala kuwaas idin yimaadaan yacni waxyigu markuu idin yimaado ilaahay diintiisu hadday idin soo gaadho labadan shay ciddii samaysa baa la yidhi faman ittaqaa wa aslax ciddii alla ka cabsi laga helo oo wa aslax wax hagaajisa فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بايلا إليه فلا خوف عليهم عبسي كركودا ما أهانين وكعبسا ما يان مستقبل كي وحصاص عدا ولا هم يحزنون تيران يون ما يان ووحي تغينا كتيران يون ما يان هيدا هذان بنا آدمكو نبت قليدا وبهين ولا بقى يبود بيدا هذان ميدي waxa lagu tilmaamaa inuu yahay nabadgelyo daakhiliya gudaha midna waxa la dhawa nabadgelyo khaarijiya dabadda mid waa nabadgelyo gudaha oo waxa lagu tilmaamaa inuu qofka bini aadamka ahi
caqiidahan xasiloonyay cabsi aanu qabin naf ahaan aanu warwariye walbahaarhayn deganaanshiye uu qabo taasi waa min annafs gudahay ka timaadaa midina waa tu dabadeed oo waxa weeyaan cid aad ka cabsanayso kugu soo duulaysa ama dhib ku haysato dabad kaaga imanaysa inaanay jirin labadaa midnaba inaanay jirin labada tan haddaba asbaab bay ku xidhan yihiin ta daakhiliga ama guduhu waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam labadaba isagoo ka warramaya man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yawmi fakaanama xiizat lahu dunya bixadaafiiriha ninka waa barista aaminan fii sirbi isagoo ku nabad qaba tolkii iyo ehelkii iyo dadkiisii waddankiisii ummaddiisii dhex joogoo nabad qaba aan cidna ka cabsanaynin caafimaad dabadeed qaba jidhkiisu caafimaad qabo amni sixiya yacni haysta cindahu quutu yawmi amni ghadaa'iya haysta nolosha aan warwar kaga jirine wuxuu liqo helaya kaa dunidu way ku soo ururtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkani nabad buu dareemayaa cid ka cabsan maayo aan alla ahayn subxaana wa tacaala naftiisu waa xasiloon tahay isla markaana waa caafimaad qabaa wuxuu cunana wuu helayaa kaa adduunyada ku soo ururtay buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam haddaba culimmadu waxay yidhaahdaan ta gudaha si gaaraynu u tilmaamay ta dabaddaana si gaaraynu u tilmaamnay ta dabaddaahi waxay yidhahdaan waa bini aadamka macdalaadka ugu waaweyna taariikhda bini aadamka soo marayba almacdala alijtimaaciya macdala alijtimaaci siyaasi bay yidhahdaan dhibta deganaanshiyaha siyaasadeed ee nolosha bini aadamku fii kulli zamaanin wa makaan taariikhda bini aadamka oo dhan marka la daraaseeyey bay yidhahdaan meelaha ugu adag ee bini aadamku gagadoonka tirada badan uu kaga dhacay waa xagga siyaasadda waayo laba daraf oo labaduba dhib yihiin baa jira iyo meel dhexe oo nabaddu ku sugan tahay meesha nabaddu ku sugan tahay waa inay ummaddu cadaalad hesho ummad kastoo cadaalad heshaa xasiloonay heshaa ummad kastoo cadaalad heshaa xasilooni bay heshaa cadaaladda maxaa ka soo horjeeda laba dacal oo labaduba khatar yihiin waa labada dunida muslimku inta badan ay u kala guuraan ama kaasay degaan ama kaasay degaan labadan unbay degaan iyagu labada dacal midi waxay yidhaahdaan ima alfawda aw alطugyaan bay yidhaahdaan dictatorship iyo cid dadka arsaaqdooda xisaabisa oo nafta isugu keenta inay gacanta ku dhigto oo dadka cidhiidhida oo nabadda ka qaada ama xagga kale inay u dhacdo oo inta la tuuro fawdo laga dhigo marna mid qudhaa dadka nafta isugu keenaya marna cid waliba cidda kale nafta isugu keenaysa waa fawda waa anarchy waa deganaanshiye la'aan waa xasilooni la'aan waa kala dambayn la'aan waa labada aad moodda caalamulislaami inuu inta badan u kala guuro oo inuu dhankaa joogo oo dulmi iyo hagardaamo iyo dil iyo xabsi iyo dhac iyo neef ku dhaguud ku jiro iyo inuu markuu pressureku ka tiro bato shayga haddii la cadaadiya marka dambe maxaa ku dhaca u qarxaa in pressureku intuu ka bato culaysku dabeetana bulshadu ay qaraxdo oo dhanka kale ay u kacdo oo ah fawda inay noqoto ninna nin xukumin cid waliba wixii ay soo gaadho boobto oo disho oo dhacdo iyana waa darafka kale labadaa dacal waxa u dhaxeeya in istiqraar iyo amni la helo istiqraar siyaasiya iyo amni in la helo nabadgelyo in la helo xasilooni in la helo deganaanshiyo siyaasadeed in la helo cadaalad in la helaa baanay kuwaasi ku salaysan yihiin labadan daraf midna cadaaladi ma taallo
dictatorshipkuna cadaalad ma hayo fawdaduna cadaalad kama jirto labada dhexdooda waxa yaala kaliya ee noloshu ka suurtagaltay waatan سأوجد ما إلهي سبحانه وتعالى وحقران كليه فمن اتقى عدة دور سطه إلهي كعب سطه كاسوح هليا كو الأمن الداخلي عالم الإسلامي مركز لغاية ما ضنا ضدك كله قيبك كم يدوح لغاية الأمن الخارجي والأمن الاجتماعي وحنك هيان كدقين كحسلوين لكن ينوح إلى الأمن الداخلي عالم كحقي سكرنا وحن كشرين بدقلية النفات وأقف وحا والرميسين هاي دون ده إنه ما أنت تشوقنه يا يسجد البدن أنت دركتي دون ده لا هو هرمرتي أي وجود البدن إحصائيات كيس ديتنات كي ما هذا وهي تلمامة يورو أفرتي قف كستيق قلبيت كدقن إنه مدي داود دقناشية كصعدة داد مين دادكو إنه كبدن يهي أنا وكبدن يهي محل ده نكس القلق والاضطرابات ورور والبهار حسلوني درو يعني مسكحدو إناني دقنين نفتي سو إناني حسلونين عبسي إنه قبو وهو ما حيوحو لا يهي إيمان بولاي إيمان كحقيقة بولاي قفك حقيقة الإيمان سيدنا بوهلا إنه لش فهمه حاجة أسعى قرطة آخرة قرطة ربي قرطة قرطة إله ما مولا دوني دترينو جرو كاسي أمن نفسي وهلا وركيه والبهار كو كهرة حسلوني وهلا لكن هدي عدالة دي كلال ويا سنا أمني خارج جابو لاي سنا كيد بديت أيو لأيه سيدا أوجاد إلهي وحلي فمن اتقى نك الدور صده أو أصلح وحاجاتية الأمن الاجتماعي بلشدة حاجاتية كاسي لبضاء اسكدر صدا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بإلهي فلا خوف عليهم عبسي كركو ضما أهانين ولا هم يحزنون مرغون مايان قيبت كواد إلهي وحينات المامية إيمانكو إنو الطمأنينة يسكينة كانوا إنو كانوا إيمانكو وقف قرتي وحو النولي وقف قرتي حقا وكسعده وقف قرتي نرشب معناها إلى ضهي سدردد بإلهي وحلي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون kuwii iimaan dhaba laga helay ee aan iimaankooda ku ladhin ama ku labin ama ku marin dulmi shirki aan dhex gelinin ulaa'ika lahumul amnu baa ilaahay yidhi kuwaasi nabad bay leeyihiin xasilooni bay leeyihiin sakiinay leeyihiin itmi'naan bay leeyihiin cabsi duniyeed ma hayso wahum muhtaduun iyagaana hanuunsan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala aladiina aamanuu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كو إيمانك لغا هلي قلبي يدود كو حسلين با إلهي ليهي اللي حسكي يذكر جيس اللي حسكي يذكر جيس كو حسلين ألا بذكر الله تطمئن القلوب با إلهي ليهي إلهي حسكي سه أيوكو دقا قلبك قفك بنادمك ولذلك dunidaynu maanta ku noolahay dadka iimaankan aan ka waramayna dhabta shariicadu ay la soo degtay waaya intooda ugu badani qalaq bay ku noolyihiin warwar iyo walbahaar dabeetana waxay ka doorbidaan inay nolosha waajahaan oo ka fakaraan oo ay ta'ammul laxdatu ta'ammul aw tafakkur waxay ka doorbidaan cagsigeeda oo ah inuu maankiisa waalo si aanu u fakerin khamra cab ويجي لبا هبين والله شن هبين شن مالمود نصيد الدمير كو شقه markaad shaqada ka soo baxda labada cashana waalida ku jir oo si loo si nolosha xashiishad cab darooga cab qudun cab hadii kale boodboodo maanta dhan wax ciyaaro orod wuxuu diidan yahay qofka kale intuu xasilay inuu nolosha dareemo oo fakaro way taasoo dhib ku ah
gurigan joogistiisa dhib ku ah deganaanshiyaanu haysanin saa daraaddeed waa inuu isku dayaa jidhkan ama inuu daaliyo suu sariirta ugu duldhaco u sakhraamo ama caqligan inuu wareeriyo si aanu wax u garanin labada miduun waa inuu sameeyaa riyaado tiro badan iyo sport tiro badan iyo waxaan tiro badan oo maantoo dhan orod dadkani maxay maantoo dhan loo ordayaan ma jidhka qura loo ordayaa maya waxaa la rabaa hadhow inaan la fekerin in la dhico inuu qofku seexada uun wuxuu leeyahay itmiinaankii qalbiga ahaa kaasi waa dhan ilaahay waxaanu tilmaamaya walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow kuwa magaalooyinka degani hadday ilaahay ka cabsan lahaayeen iimaanna laga heli lahaa cirka iyo dhulka barakaadkoodaan u furi lahaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala haddaba su-aashaynu isweydiinayna waxay tahay labadan shay aynu tilmaamayno ama amniga nafsiga ha noqdo ama amniga khaarijiga ha noqdo aynu tilmaamayno mujtamacaadka maanta dunida ku nooli inta badan cid labada isku haysataa way yartay kuwii waxyiguu soo degay ay ahayd inay labadaba helaanna intooda ugu badani waxay helayaan waxa weeyaan inay degan yihiin xasiloon yihiin iimaan ahaan waxyaabihii maalan soomaaliya burburkeedii abaaru marka ka dhaceen iyo waxaa reer galbeedku qorayeen ay ugu yaabka badnaa agtooda waxaa ka mid ahaa dad baahan oo gaajoonaya oo dhibahaysato oo dowladnimo waayo oo isboobayo haddana faraxsan bay ku leeyihin oo qoslaya waayo waa qariib iyagu ma dareemayaan qofkani waxaan uu dareemayo inuu ilaahay rumaysan yahay inaan adduunku dhibta caynkana ku haynin iyaga waxaa qariib ku ah in la arko qof noocaa noloshiisii tahay ummad noocaa noloshoodu ta aan isdilaynin aan isagu naftiisa goynaynin iska faraxsan nooloo si caadiya u jira laakiin waxaynu weynay tii ahayd inaynu cadaalad ku dhaqanno dabeetana caalam alislaami labada dhinacunbuu socdaa ama qaybna duqaad baa haysata iyo kuwa dhaalimiina oo dadka nafta isugu keenay qaybtii kuwaa ka baxdayna fawday galeen energy dil iyo buuqiyo isdabaroor bay galeen iyan labada kooxoodba waa la-ayeen amnigii khaarijiga ahaa qolada tanina nawcun maa wax cadaalad ka mida way isku dayeen in la helo alcadaala alijtimaaciya dadku furaska intiisa badan nawcun maa u sinaado cadaalatu tawsiicin waxuun ka jiraan waxa hantida waddanka si uun haba la kala badsaday in dadka wax ka wada gaadhaan waxyaabahaasi waxay keenayaan dadku inuu deganaado kursiga in si nabada loo kala qaato aan xoog iyo budh lagu kala qaadan ama boob iyo dhac lagu kala qaadanin ama musuq maasuq iyo annagaa boqolkiiba 99 keennay aan lagu kala helin taasi waxay keentay nooc min alistiqraar laakiin iyana waxay waayeen markay la dagaalameen diimihii oo dhan markay ilxaadku ku batay markay diin la-aantu badatay iyana waxay waayeen alamni nafsi khawaar ruuxiya dadka ku dhacay ruuxaan bay u madheen saa daraaddeed baa waxaa ku batay isdilka iyo darooga cabka iyo wixii la mid ah haddaba soo dhowr su-aalood baynu isku dayn inuu ka jawaabno ah waxaan in la helo maxaa muqawamaat u ah kow waxaan leenahay waxa u ah waxyiga ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay isagaa ina yidhi bini aadam anaa idin abuuray waxa idin fiicanna anaa garanaya cid waliba waxay samaysay iyadaa taqaana saa maaha dunidan aynu joogno nin waliba productka uu soo saaro ma cid kale ka badisa isagaa waa kambaniga sameeya khabiiru ah oo la yidhaahdaa kambani hebel baa waxaan soo saaray isaga ha la weydiiyo cid waliba productkeeda iyada khabiiru ah ilaahay wuxuu leeyahay anaa idin abuuray alaa lahu alkhalqu walamr anaa idin abuuray waxa u baahantiin iyo qaabka u noolaanaysaana anaa idin siinaya kataloga nololeed iyo qaabka u noolaanaysaan anaa idin siinaya sidaa awgeed waxaan leenahay kow
nolosha nabadeedu waxay ku xidhan tahay inay dadku caqiido saxiixa helaan waxaa laga yaabaa dadka siyaasiyiinta inay dhahaan dadkii baa gaajo u baktinaya wadaadaduna ilaahay laga baqo ma ka warramaya ilaahay haddaanu ka baqin si kale uu maranayaa sidaa ogeed kow inuu qofku naftiisu deganaanshiye hesho oo uu xasilo oo uu caqligiisa iyo maankiisu caafimaad qabaa waanu cidna boobina aakhiro ka cabsado iyo xisaabina ka dambaysa waxay ku xidhan tahay caqiidadiisa in la toosiyo islaaxu alcaqiida waxay ku xidhan tahay ikhlaasu lcibaadati lilahi subxaanahu wa tacaala ilaahay in loo gaar yeelo cibaadada qofku hadduu dariiqaa raaca akhriya adduunba u badbaadaya ilaahay baana qur-aanka wuxuu ku ballan qaaday wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat labadaas shay ilaahay wuxuu u yaboohay baa rabbi leeyahy kuwii iimaanna laga helay camal suubanna sameeyey labadaas shay dadka laga helo muctaqadkiisuna sax yahay dhaqankiisuna quman yahay labadaa haddii lagaa hela baa ilaahay leeyahy layastakhlifannahum fi lard dunidan waan dhaxal siinayaa baa ilaahay leeyahy sidii umamkii hore baan u dhaxal siiyey walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum diintu ilaahay raalli uga yahayna wuu makansiinaya gacantuu u gelinaya walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baa ilaahay yidhi cabsidooda dabadeedna nabad baan siinayaa baa ilaahay leeyahy amni mid nafeed iyo mid adduunyeedba way helayaan shardigu muxuu ku xidhan yahay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum lfaasiquun shardigu waa yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya xaalay ku sugan yihiin oo ah inay aniga ay caabudaan cidna aanay ugu shirig yeelin marka waxaan leenahay kow asbaab alamni inaynu politically degno inaynu mujtamac ahaan degno xasilooni inaynu helno naf ahaan degno wax waliba inoo hagaagaan waxay ku xidhanto kow ah in iimaankeenna aynu dhisno caqiidadeennu inay toosto laba waxay ku xidhan tahay baynu leenahay qadiyadda ay culammadu ku tilmaamaan alamru bilmacruufi wanahyu can ilmunkar dad samahana isfara inaynu noqonno xumahana iska reeba bulshada aan dhaqankaa yeelan xumuhu wuu ku faafaa oo way duntaa markiiba yacni laxda haddaad wanaagsanaato laakiin aan wanaagga cidi ilaalinaynin bulshadu way dumaysaa sidaa awgeed ayaa waxaa laga rabaa ummadda muslimka ah calaamadda lagu yaqaane saxda ahiba waxay tahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi waxaad tihiin dadkii ugu khayr badnaaye ummadda loo soo dira ilaahay saxaabadii nebi maxamed ku leeyahy oo waayo sababtu waa maxay ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkari watu'minuuna billah baa ilaahay yidhi saxaabadii nebi maxamed waxa la leeyahy dadka u khayr badantihiin maxaa ugu khayr badantihiin waxaad tihiin ummad wanaaggana ka shaqaysa xumahana reebta allana rumaysan baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala waxaa khayrnimadan laydiin sheegaya ummadda nebi maxamed dadka ka khayr badan tahay de adoo daalimo dadka kama khayr badnaanaysid dadka waxaad ka khayr badan tahay markaad yeelato sifadii ilaahay ku tilmaamay ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo diray laakiin hadday bulshadu boobka iyo dhaca isku taageerto inay isboobto inay isdhacdo inay isdulmido inay cadaaladda ka tagto haddaad isku taageerto waa bulsho nabadgelyo heli maysiduun maantaad dhici adna baraa lagaa dhici maantaad suldaari adna saa dambaa lagu suldaari sida uma u socon nabadgelya dhici mayso markaa ninka ku faraxsan reer hebel baanu kurastoodii boobnay ama waxaan ka qaadnay ama xoolahoodii boobnay ama dhulkoodii boo adna waa laga qaadi taasi isbeddel ma jiro isbeddelku wuxuu ku dhacaa oo nabaddu ay ku timaadaa inay dadku cadaaladda dareemaan cadaaladda waxay dadku dareemi karaan markay ummadda ku dhex jiraan dad samaha ka talinaya laakiin dadka hormuudka u ah hadday iyagu noqdaan kuwa dhaalimiinta aan samaha ka talinayn say u guulaysanayaan walow aa mu'miniintiin waa halaagmaysaan walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam
آيات القرآن وحينا تري وأصلح مصلحين تهي إن تصالح تهقر لك مرة إن مصلح تال الربا إن أدقوا ونكسن تقر الله مرة به وحل الربا إن أدت كانوا ونكنيس نبي عليه الصلاة والسلام إسقوا شوغا قري زينب بنت جحش أيو هردك توصي إسقوا فزعة رسول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه تنبغ التوصيب توحيد سدي إلهي باوين وحاو نبغ التلمام عليه الصلاة والسلام عرب نبا قصص عطب نبغ يلي ويأجوج ومأجوج بالا فريميشودي وحين نقدر لأن حديث كان انتي صدام نبغ عليه الصلاة والسلام زينب سؤال بي ويدي سورانسا أفنهلك وفينا الصالحون ميال لنا لهلاغيا إيادو داد صالحين نوغو جيران داد كساقو ولي داد خير قبائي كو جيران ميال لهلاغيا بو نبي ويدي عليه الصلاة والسلام هوين إيداس نبي حكوري نعم إذا كثر الخبث هاي والهلاغيا هدي أي بطان دادك حمي هذا دادك حمي بطان إذا أمضوا كأمة وحنا وين مركو هوري هدي للربا نبض لهله مد نفسية يمد خارجية بين لهله كو وين عقيدة دو إصلاحنا ويدتكو إيمان صح هلان لبا وحنا وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دتك وين حمان الله قريبا سمحنا لفرا هذا واحد مودا سومالدو إنه كوب بدن تهي غوغائيين dadka balada sheega dad wasaa'ilul ijtimaacooda eegto waxaan maanta la iskula xidhiidho waxa ugu badan ee ku jira waa waxaan sax ahayn ama ummadda nabadeeda ka talinaynin walidaalika buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ummaddu taladeedu hadday ku xidhanto inta ruwaybidada ah نبي عليه الصلاة والسلام وحليي ومضى وقتها كو إيمان دونا سنوات خداعات أي كو إيمان دونا أبو نبي كنت المامي عليه الصلاة والسلام يعني قليلة العطابة ويكون فسر العلماء سنضه واحتركوا دو يريي ومحا سببتو تهي وحو نبي كنت المامي إن كاذب كان الرميسان دونه صادقنا لبينين دونه خائن كلا قفك خائن كال أمانة اللور ديبان دونه أمين كان لتخوين دونه الرويبضنة أي أمور العامة كهذه دونته مرة سيد نبي قال له ويدي الرويبضة